Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkaad naga daawanaysaan waa kanaalka aan ku leenahay YouTube ee TasteTube. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si uu kuu soo gaadho video walba oo aan soo gelino. Waad ku mahadsan tahay. Adigan haddaana daawanaya ma iibsan lahayd kombiyuutar soo shaqaynayay muddo ku dhawaad 40 sano? Mana ku iibsan lahayd lacag gaadhaysa ilaa dhowr boqol oo kun oo dollarka Mareykanka ah? Kombiyuutarkan ayaa lagu kala xaraashtay California lacag gaadhaysa 400 oo kun oo dollarka Mareykanka ah. Sida la sheegay, kombiyuutarkan waxaa la sameeyay 1967. Muddadaas intaa la eg waxaa soo kala haystay laba nin oo kala ahaa macallin iyo ardaygiisii. Macallinka wuxuu ardaygiisa ka siistay lacag gaadhaysa 600 oo dollarka Mareykanka ah. Ardaygii ayaa hadda xaraashay lacag gaadhaysa 400 oo kun oo dollarka Mareykanka ah. Kombiyuutarkan ayaa ah kombiyuutarkii ugu horreeyay ee soo saarta shirkadda Apple oo loo yaqaan kombiyuutarkan Apple I. Kombiyuutarkan waxaa la socda 2 cajaladood oo ku jiraan software-kii uu ku shaqaynayay kombiyuutarkan iyo warqaddii manual-ka oo tilmaamaysay qaabka uu shaqaynayo kombiyuutarkan. Adduunyadan hadda waxaa soo badanaya in la iibsado alaabta qadiimiga ah oo lagu iibsado lacago malaayiin dollarka Mareykanka ah. Dadkuna hadda waxay xiiseynayaan alaabtii la isticmaalayay muddooyin aad u dheer. Walow way jiraan dad isticmaala oo xiiseeya shay'aasha cusub oo hadda soo baxay. Waad ku mahadsan tahay daawashadiina. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar kanaalka, sidoo kale gambaleelka furo si ay kuu soo gaaraan video walba oo aan soo gelino. Siina share garee si ay u arkaan asxaabtaada kale. Waad ku mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.